gabagabadii ayaan kusii shaqeynaa markaan dabcan dee dadku waxay u arkaan hees diyaarsan oo hawada ku jirta laakiin bal marxaladaha ay heesta marto haddii bal aad dadku u bidhaamiso okay heesta horta guud ahaan markii la hees baa la iska dhahaa yani heesta marka hore hees way tahay waa run laakiin waa farqo badan tahay markay hees noqonayso iskama noqon kaligeed si u joogta hees la iska noqonayso way farqo badan tahay kow heesta waxay ka soo bilaabanaysaa fikir heesta maxaa horta noocee waay ujeedadee waay maxaa loogu dan leeyahay way horta kow ka soo bilaabanaysaa fikirka markuu helo qofka ayaa haddana waxaa ku xiga haddana in erey ahaan loo sameeyo oo erey ku xigo erey ka qaadan karo ereyga ujeedada iyo isdabataal oo ilaa iyo ku dhammaanayso meel maaragtay macquul ah ku dhammaanayso waa inuu helaa haddana abwaanka ninka sameynaya heesta magaciisana waxaa la dhahaa abwaana la dhahaa kaas okay labaan joognaa abwaanka markuu sameeyo abwaankii wuu soo qorayaa iyadoo qoran buu wuxuu u keenayaa laxamiista laxan ninka laxanka saarayo heestan waxaan rabaa in la laxameeyo laxankii wuxuu qaadanayaa kabankii ama wuxuu qaadanayaa heestii oo hortaalo iyadoo qoraal ah oo qoran ayuu ishordhigayaa hadba wuxuu ku qabanayaa ereyga ka kale ama ereyga bilowgiisa iyo meeshu ku ekaan karo erey socda dhexda xataa macnaha nidaam ma aha ama ma okay maaha si ereygaas loo fahmo haddii erey kaloo hadda bilaaban lahay iyo kii dhammaanay haddii isdhex galaan heestaas fahamkeeda waa si lagu fahmo waa adagta waa la dhihi karaa laakiin waa ma la fahmi kara hadhow basta waxaa la rabaa erey waa ereygan kow laba saddex erey haddii yihiin haddii afar yihiin afarey haddii tahay haddii saddex yihiin afarta erey ugu horeyso ama saddexda ugu horeyso waa la isku qabanayaa saddexdaas ma la gudbaayo dhaxtaal muusikaa gelaya jaa qofka marka dhagaystaha wuu fahmayaa intaas wuu fahmay wuxuu diyaar u yahay inuu helo maxaa ku xiga intaas waa soo dhahay saddexdaas waa istaagay muusikaa dhexgalay maxaa ku xiga wixii ku xigo haddana waxay noqonaysaa bilow haddana erey kala bilaabanaya ereygaas bilowday meesha uu ku dhammaanayo sentence waxagiis meesha uu ku dhammaanayo waa in ninkan laxanka sameynayo waa inuu fiiriyaa yani haddana meesha uu ku dhammaanayo waa calaamaysanaya intuu ka bilaabaya intuu gaarsiinaya halkaas markuu joogo waa haddana waa joogsanaya dhegeystaha wuu fahmaa haddana macnaha meesha heeskan uu ku bilowday haddii meesha kasoo bilowday meesha ku ekaa haddana meesha laga qaaday haddana meesha la keenay haddana qaybtan kale sidoo kale qaybtan kale sidoo kale laxamiistahana horta sidaas ayuu u sameeyaa laxamiistaha isku nooc maaha dadka fanaaniinta laxamiistayaasha qaarba sibay u sameeyaan qof wuxuu sameeyaa wuu duubaa sii duubaa tii uu sameeyaba qalcaddii u diyaargayo wuu duubaa qalcaddii kale uu timay wuu duubaa afartii kale erey sameeya wuu duubaa hadhow haddana iyagoo isla socda waa loo sameeyaa sidii loo kala maskax fudud yahay laxamiistayaasha laxamiistana waa bilaabayaa isagoon waxba duubin ayuu isku xiriirinayaa intooda waa israacsinaya waxba waa kala reebayaa oo sidii hore wuu kala reebaa laakiin waxba ma duubayo wuu bilaabaa ilaa iyo dhammaadka isagoo xafidsan loo xafidaa saasuu ku xafidaa laxamiistaha haddii qof kale uu qaadayo heesta markaas wuu u duubaa iyadoo duubana cajalad ahaan uu siinaya xilliyaataas waxaa laga yaabaa in america ama macnaha canada ama waxaa shiinaha xataa waa loo diri karaa markaa intaa lagu sameeyey xagga loo diraa saasuu qofka xagga jooga xafidaya marka cajaladaas ku xafidaya haddii asaga qofka la xameynaya uu qaadayo haddii waaba u sahlan tahayba isagaaba qaadayo oo heestaas yani ugu fududaanaysa qaybtaasay soo maray waa laxankii ka bacdi xafidaadda ama sameynta xataa laxamiistayaasha waxaa nooc kale waxaa jiro oo qofka uusan garaaci karin kabanka oo laxan ku sameyn jiray macnaa ku sameyn karin isagoo aan waxba garaacaynin ayuu sameeyaa laxanka waa jira laxamiista noocaasna bis afka ku dhahayo ilaan kabankii ma garaaci karo saasna waa lagu sameeyaa marka waxaad maraysaa qaybtii saddexaad ee maraysaa laxanka
fikirkii abwaankii soo alifay alifaadii erayadii laxankii iyo qaadistii saddex afar bay soo martaa markaas kadib ayay hees noqoneen laakiin iyadoo iska socotay keligeed heesna iskama noqoto juhdigaasaa loo soo maraa hadhowna waxa waaye waa lagu raaxaysanayaa marka dad baa la yaaba kaan heeskan ereyadaas aan isku daba xiriirsanay heeska qaabkan loo qaadaa meesha go-ayso meesha istaagayso meesha joogsiga meesha yacni waxay la noqonaysaa wax maaragtay laakiin sidaasaa loo soo maraa heesta saasay heesku noqota sidii gabaygo kale maaha iyo geeraaradka iyo waxaa imaa way ka dhib badan tahay macnaha samaynteeda cod qabashada dabcan qayb bay ka tahay iyana cod qabashada haa cod qabashada codka marka codka la qabanayo oo qofka codka loo qabanayo heesta waa inuu xafidsan yahay horta kow hadba waxaa jiri jiray waagii hore codqabad ma jiri jirin waagii hore mana isticmaali jirin wax codqabad la dhaho waxaa la isticmaali jiray qofka heeska waa soo xafidaa masraxuu soo istaagaa laa toos mikrofoonka iyo asaga ha cod xumaado ha cod ficnaado halkaas macnaha marka masraxa waxaa tegi jiray qof isku kalsoon ayaa inta mikrofoonka toos u tago toos u qaadi jiray laakiin hadda haddii qofka dhahayo ta maanta codqabadkaas ayaa u bedelaya loo hagaajinaya wixii filtra la gelinaya wixii waa laga saaraa wixii mataqaana meesha waa mar markaan salaadaas xilligeeda joogtay ama waa jiifa waa iska seexdaa ama waxaan ka qoomameeyaa waayo aan soo maray waayo aan soo maray waa majaano soo dhaafay oo xagga nolosha ama waqti badan oo aan soo berdelay waxaan maaragtay marka hadda macnaha aan ku aado arkin ya marka hadda aada macnaha u arkin aan u arkin hadda waxba aan u arkin laakiin aan ku soo berdelay ayaan ka yani waa ka qoomeeyaa uma xiiso hadda markii hadda aan arkana macnaha yani waa la yaabaa waxaan dhaha niyo bal xilligaas haddaad ka bilaabi lahayd xilligan xajku waa dhaafi lahayd meeshii waxaa sii mari lahayd macna meel kasii xaggaysa si fiican waa tahay ka waran sidee isku tihiin ciyaaraha daawashadooda ama ciyaaridooda ciyaaraha noocee yani kubadda cagta dad baa jiro in jecel inay ciyaaraan jimcis ahaan dad baa taageero daawado oo waqti ku bixiyo adigu nuur ahaan si isku tihiin ciyaaraha hadda sida aan fanka maaragtay xoogaa lagu hadda aqoonsan yahay oo fanka waay saas waay waxaan ka nuusameeyaa wala xamiista waay waa tuma lelee si ka daran oo ka badan yani weliba ka sii badan ayaa ciyaaraha horta ku ahay oo macallin waxaan aan caadi ahayn ciyaaraha sidaan ugu fiicnaa banooniga sportiga fuudka weliba lugta waa laga qeylin jiray goolaankiisa markaan soo galo yaraanteedii baan kuu sheegaya macnaha waa hawshaas waa laga soo gudbi soo ma hadda wiilasheedii baa maaragtay iyagaa hadda macallimiin ciyaaryahana aniga laakiin aad baan isugu fiicannahay daawashada ciyaaraha aad baan u danayaa waa maaragtay yaa taageertaa kooxahan ka dhisan dunida waxaan ku fiicanahay macnaha qabiil hebel ma ku dhahay balooni ma socdaa meesha aniga bas iska daawanaysa iska daawadaa aad u danaya macnaha maanta haddii lagu yiraahdo Jubbaland TV iyo laqay tiimkiisa ducazuman tahay yani cunooyinka noocee jeclaan lahayd in mataqaanay maanta lagu cazumo oo cuno afka laga cunaa ama kuwii dalka aadaan ama kuwii dibadda laga keenay aadaan Jubbaland TV ay u cazuman tahay waxa caadi ah sheegtay waxa su'aalihii hore dhan maartay sanaa u cajiibsan bay cuno haddii la sheego sideedaba horta waxaan aad u jeclahay hilibka iyo caanaha hilibka nooca ariga geela hilibka ariga aad u jeclahay u daneeyaa sababta hilib waa caadi oo macnaha maalin walba hilib ariga macnaha كل يوم مش عيد ماشي حرنت او ماشي شقينا ayaa waxa laga sameeyaa SMBO xaafadeeda markii laga reebo xaafadeeda yani mar aan dalabaad noocaas oo xoogaa iska yara waxay sanay maahin raashin caadi ah iska cunaa taasna waa caadi oo nolosha ka mid tahay عزمات دي شكت أولي تي في أشكت تي في عادي ما هو تي في أشكت حوايا هيل أنا أدنى أجي حوايا أما باستا أما بريس درس عتما أنا ذلك سأسكتي أنا ذلك بهلا
la dhaho cunada dalka oo qudaarta miyaa sheegaysaa mise macnaha waa dalagyada noo soo baxo dalkeena ka baxa ee dadku aada u jecel yihiin qaarkood markii la yidhahdo cunistooda niyo horta laba hal barnaamij oo waxaa jiro oo marna aan aada macnaa isu dagaalnay marna aan aada isugu fiicnayn sida halkaas shay haddii aan macnaha kuu sheego oo xaqiiqa ah macnaha runtii yaraanteedii waxaan jeclaan jiray waxaan jeclaa mooska biseelka ayaan aada u dareyn jiray oo runa macnaha yani sheeka maaha xaafadda waxaa laga yaabaa in lacagna ii dhiibi loo soo adeeg macnaha markaan yar ahay wax la ii diro suuqa la iga diro oo baxaya suuqa markii lacagtii aan qaadaysan u socdo maqaasiin sida hadda mooska hadda loo gada ma ahayn mooska maqaasiin baa loo gadaya maqaasiin baa dhihi jiray mooska maqaasiinka ugu soo horeeyaan tegayaa halkaasaan fadhiisanayaa lacagtii mooskaasaan ku cunaya adeegii dhammaan la ii soo diray haa mooskaasaan ku cuni jiray mooskana ma aha macnaa kan meeqa waay intaas ma aha ninka maqaasiinka iskale ama mooska iskale waxuu fadhiisanayaa halkaas maqaasiinkaad gelaysa adigi haddii aada qaadanayso inta aada rabtood soo qaadanaysaa asagaad ula imaanaysaa markaas kaa xisaabinaya haddii aad cunayso waad soo cunaysaa qoloftii baad soo qaadaysaa inta qolof aada cuntay baad u keenaysaa macnaha soo banaanka halkaasuu fadhiyaa intuu moos kusoo qabto ma ku siinaysa halkaa soo qaadanaya oo ula imaanay imaam fiican oo jiray xilliga waad berisamaad waxaa markaan kuu sheegaya marka aniga dabeecaddeedu waxay mooskasan jeclaan maqaasiinkan gelayaa 25 35 oo xabo oo moos qoloftii anoo saas u wada u keenayo kalyantii ah baa la yaqaan marka xilliga aan ku leeyahay waa isku fiicneen waa markaas oo mooska aadan isugu fiicneen heer waxaan gaaray caloosheedii intii saan u baxdo haddana saan u laha saan u baxdo macnaha yacni si aan caadi ahayn isticmaalka macnaha moos kale saan u baxday caloolweynaad moola jirta caloolweynaadkii waa ka gudubtay waa jiiraysa macnaha saan u jiiraysa moos la ku jira ma saxaroodo ma dareemo macna bes haddana mooskaas waa wadaa macnaha shalay intaas cuntay iyo macnaha haddii inta cuntay maaha ultimo macnaha baana xataa saas magacaas baana meeshaasu ka imaaday naanesta haa banaana waa moogtahay talyaaniga waddanka inta badan talyaaniga lagu dhaqmi jiray waa la isticmaali jiray marka banaanadii ayaa oo lasoo gaabiyey nuur moos baa la yidhaha marka hore nuur moos macnaa xaafadda nuur moos waxaa laga ilaalin jiray in adeeg xataa la ii diro marka nuur moos ay u dhigtay nuur banaana haddana ay dhaheen marka banaanadii baa soo gaabiyeen nuur baanay dhaheen haddana baanadii baa iska dhaqan gashay marka waa tahay cunto aan haddaad sheegtay marka su-aasha ugu dambeysa waxay tahay maadaama nin haldoor ah oo yani waayo badan deegaanka usoo adeega aad tahay intii hadda dowladda jubbaland jirtayna si wanaagsan waxyaaba badan oga soo qabtay oo lagu xusuusto inaad hirgelisay kooxdii heegan adiga iyo ustaad nuur min aan idhaahday ustaad ciise maanta haddii lagu horgeeyo madaxweynaha jubbaland mudane axmed maxamed islaam maxaad ka codsan lahayd horta madaxweynuhu waa madaxweyne ninkii nasiib leh oo maaragtay nin kastaana ma la kulmo oo qofka nasiib helidiisaaba iska yarba isagoon ku diidaynin oo haddana maxaa igu imaantay ku dhehaynin haddana adiga la kulanka qofka ayaaba horta iska nasiib aba maaragtay oo ilaahay xaggiisa maaragtay qofka la kulmayo inkastoo haddana markii aada la kulanto qof aada u danayn lahayd oo aada jeceshahay inaad la kulantid oo waxyaabo badan oo adiga waxa maskaxdaada ku jiro ku diyaarsan yihiin ayaa haddana markaad la kulanto waxaa laga yaabaa wixii oo dhan ba inay meesha ka baxaan iyo waxaad dhihi lahayd iyo waxaad weydiisan lahayd marka waa karaamo oo qofka macnaha uul amarka karaamo gaar oo ilaahay qofka siiyo waayba sababtoo ah ninkaan intaasoo qof oo intaasoo macnaha kun oo qof intaasoo milyan qof ayuu waxa u yahay marka qof walbana ma qancin karo marka sidaa darteed macnaha waxaad moodaa in culeyska inta laga qaaday laga yareeyey oo qofkii u imaado wuxuu weydiisan lahayba uu ilaawo ama si waxa ka noqdo balse haddaa i tidhaahdee maxaa weydiisan lahayd dadki inaan isiga sheegay barab waxaan weydiisan lahaa waa qarsanaya laakiin
هذه سوق القال إن الله كان لا ترتيب أصله وشيء waa tahay aad iyo aad baad u mahadsan tahay ustaad nuur waxaan kaaga mahad celinaynaa waqtigaaga qaaliga iyo sida aad barnaamijkan sooyaalkaaga aad maanta daawadayaasha ku xiran Jubbaland TV aad ugu bidhaamisay dabcan waxaan rabnay bal maxaad isleedahay maanta waad ku soo xiri kartaa oo aad barnaamijkan heesteed ku sugutin lahayd waxaan ku soo tegin lahaa aniga aan jeclaystay bacdama hadda waqti badan aan wada qaadanay oo saacad iyo xoogaa waliba saacada iyo afla jir aan wada qaadanay anagoo kulligeenba u adeegayna maartay hawsheena ay tahay bulshada inaan macnaha inaan dadka wax u sheegno waxaan ku soo gabaynahay silo gaaban oo maartay ku saabsan saxaafadda ya dii aad iga ogolaataa waa tahay ku soo صحفيا عزة مدني شرفت إيحانها للعليم لولو لو علي مهذو بلد لقو عزوما صحفيا عزة مدني شرفت إيحانها للعليم لولو لو علي مهذو بلد لقو عزوما codkooday idaacadaha nooga sheegaan cilmiga iyo diinteenna culus iyo caalamka xogtiisiyo codkooday idaacadaha nooga sheegaan cilmiga iyo diinteenna culus iyo caalamka xogtiisiyo عيارها أدونكيو شخصيات عن بحي عيارها أدونكيو شخصيات عن بحي سوقان عين بعينيو انت شيك وعاشقا انت شيك وعاشقا عيارها أدونكيو شخصيات عن بحي عيارها أدونكيو شخصيات عن بحي سوقان عين بعينيو انت شيك وعاشقا انت شيك وعاشقا واكوا عقابنو عقهود دالين وكوا عقابنو عقهود دالين عبسنا آن أقونو حبت آن كعرارين حبت آن كعرارين وكوا عقابنو عقهود دالين عبسنا آن أقونو حبت آنك عرارين حبت آنك عرارين عقدد لي أذيق شعبكو ضعيف تلاها عقدد لي أذيق شعبكو ضعيف تلاها عرفنا أنك دوني عقلي أنك كورسنو عاوية دنكينو هعدي بينا صحفيها صحفيها الله عزي صحفيها عاوية دنكينو هعدي بينا صحفيها عزينا صحفيها الله عزي صحفيها عزينا صحفيها الله عزي صحفيها
waa tahay dabcan magaaladan intaasoo sana joogtay oo aad yani nidaamyadii kala gedisanaa ee soo marayna aad mataqaanaa qayb ka ahayd marba koox aad sameynayseen markay Jubbaland qabsatay kadib maxaa samayseen Jubbaland markii qabsatay oo hadda soo ma waxaan sameynay maamul iyo waxa ka dhacay Jubbaland ayaa waxa ka soo baxay maamulada hore ka duwan markii hore waxay ahayd iska qabo babca qolaa bixis qolaa soo geli qolaa bixis qolaa soo gelis maamulkan markaan aragnay inuu maamul fadhiyo oo nidaam dawliya oo aan arki jirnay kale ay soo baxday ayaa waxaan sameynay kooxayay xamar kooxo badan ka jiray oo afar kooxa ciidamada ayay kamid ahaayeen sida horseed oo militariga booliska oo heegana awnkad oo asluubta ah ayaa ka jiray oo macna marka anagu waxaan sameynay halkan natiijada xilligii dawladii dhexe koox horseed waamo la dhihi jiray ayaa ka jirtay oo maartay horseed waamo dadkii waa kala burbureen waa la kala tagay way iska baaba'een waxaan sameynay oo aan aasnay koox la dhaho heegan kooxdaas oo markii hore ka bilaabatay qaybta baambeyda ama baanda muusikada ama baambeyda soo dhaweynada maartay mas'uuliyiinta markay imaanayaan soo kale calanka trumbada muusikada calanka kale ayaa halkan waxa loo soo bedelay in cornela oo dawladda federaalka ka socda ka tirsan oo cornel boolisa ayaa loo soo bedelay in uu koox oo abaabulo ah baambeyda ama koox baanda muusikada ninkaas oo la yiraahdo cornel ciise axmed laho ninkaas ayaa wuxuu abaabulay inuu sameeyay inuu isu keeno baambeyda aniga ayaa ku soo biiray marka aan ku soo biiray anna fikir waxaan ku soo kordhiyay in qayb kale oo fanka ah isla maartay oo heegan ah in isla qaataan ilaa heegan xamar labada way leeyihiin baambeyna way leeyihiin fan way leeyihiin oo hal mataqaan hal meel laga xukumo tiiba anina ku soo kordhiyay cornel ciise oo ila qaatay tii ayaan isla qaban qaabinay waxaana ka dhisan hadda magaalada kooxdaas laga yaqaano oo kooxda heegan la dhaho oo Jubbaland si fiican loo yaqaan hawl kasta oo loo qabanayo maamulka Jubbaland ku saabsan wacyigelinada noocaas ku saabsan waxa qabta kooxda heegan oo baanda muusika iyo fankeeda is wadata qaybtan marka sidaas ayaa fanka hadda Jubbaland ama Kismaayo fankeedana waa heegan baandadana mataqaanay baanda muusikadana waa maartay waa heegan kooxo kale way jiraan kooxo kale SMB kooxda nabad sugidda way jirtaa oo hilaacdo kooxo kale oo tasmo qaran la dhihi jiray ilaa hadii inay baabaaday in kale ma aqaan laakiin aniga hadda anoo ka mas'uul ah oo ka turjumayo wakiilna oga ah cornelka korka haysta ciidanka banaaninta ama booliska heegan iyo baanda muusiga anoo ka turjumayo oo ama wakiilka ah iyo waxaan halkan ka cadeynayaa in kooxdaas heegan ay hay'ad tahay kooxda ka dhisan magaalada Kismaayo waayahay yaa marka fangareeyo gacanta ku haya horta kooxdu waa koox booliis waa ciidan oo civil ma aha nidaamsan oo nidaam ku shaqeeya meel bay degan yihiin aag bay degan yihiin waxay leeyihiin maartay nidaamyo iyo dastuuro iyo ay leeyihiin markii laga imaado maartay nooca macna ciidameed markii laga imaado waa dafcaday ka soo baxaan tababar bay waxay ku soo galaan dugsiga booliska ee tababarka loo galo ay ka soo baxaan markay ka soo baxaan waxay yimaadaan ay ka soo baxeen waxay yimaadaan qaybtan booliska ay joogaan ay ka tirsan yihiin oo u diiwaan gashan yihiin fangareen markii loo waxaan baa hoostagnaa ciidanka waxa la hoostagaa taliyaha qaybta ee booliska baa wada hoostagnaa ciidan ahaan baa loo wada hoostagaa wixii fan ahaan iyo waxa ahaan waxaa mas'uul uga ah dawladda uga ah cornel ciise waa tahay dabcan marka laga soo tago yani xuquuqaadka iyo in ciidamada laga tirsan yahay marka fan laga hadlayo agab baa loo baahan yahay oo yani waxyaabo badan loo baahan yahay baa jirto marka ma isleedahay kooxdu si rasmi ah bay u heshaa adeegeeda inkastoo sidii loo baahnaa ama si yani originalita ama dhab ah ayay uga baahi baxeen ama looga baahi bixiyay aanan dhehelin haddana kama marnin waxay mataqaanaa mar waxaa jiray
madaxweyne ku-xigeenka saddex labaad looga dheere oo mar mataqaanaa oo noo gaday samaacado iyo mixer noo iibiyey marna taliyaha macnaha taliya ku-xigeenka qaybta booliska ayaa noo iibiyey samaacad isagana oo tafaasiilka fanka yani lagu yaqaano ah waxaa jiray haddana mar kale qaybta bandbayda durbaanada originaalka oo dhexda lagu xirto qayb baa naga soo gaartay baahidii sidii iyo si u dhow midna ma aha baahidii sidii macnaha ayay u taagan tahay turumbooyin ayaga wax dayactir oo turumbo aan helnayba ma jiraanba sideedaba aadna waa macnaha yani baahida hadda noogu weyn oo noogu muhiimsan waa qaybta turumbooyinka baambayda oo baandada waa gudbisanay maamulka waa u gudbinay taliyaha ciidanka waa u gudbinay booliska oo aan hoos tagna waa u gudbinay ugu dambeyn madaxweynaha naftiisa hadda intiisa hadda howlahan shirarka xamar intiisan aadin ka hor ayaan ka helnay maaragtay ogolaasho in uu noo iibin doono turumbooyinkaas nooga soo iibin doono meelaha laga gado ama Nairobi ama Dubai oo amarkiisa macnaha soo qorka waa soo qornay waan ka sugaynaa haddii si wax nooga soo gaari doonaan ma naqaan laakiin dhinacaas baahideeda waa qabtaa way jirtaa si guud waxyaabaha aad waraysigan uga faa'iideysan lahayd oo is leedahay kooxdu way u baahan tahay oo in yani loo sii dardargeliyo maxaa ka mid ah waxaa ka mid ah si guud waxaa number 1 kan ugu horeeyay oo number 1 ka ugu horeeyay waxa horta waa gaadiid la adeeg kooxda gaadiid way u baahan tahay xafidii waa kala fog yihiin subax walba waxay u soo shaqo tagaan goobta xarunta shaqada oo booliska iyo loo soo shaqo tagaa marka runtii waa lagu dhib qabaa waa ficnaan lahayd bas kooxda soo qaada xaafadaha ka soo aruuriya haddana rawaxiya inay hesho oo baahida aan ay ka mid tahay waxaa kaloo ka mid ah maaragtay xagga agabka kale maaragtay waa waxyaabo aan hadda aan rabo inaan halkan ka sheegin laakiin hoos ahaan aan u gudbinay madaxda dowladda ay og tahay oo aan u gudbinay oo dhinaca xagga amniga ku saabsan waa tahay aad baa u mahadsan tahay